maxamuud inaan u ballan qaadno dalka Soomaaliya in uu mar walba doorkiisii ku saabsanaa roolka uu ku leedahay midowga Afrika inay u taagnaa doonto hoggaankiisana maadaama aan boqolkiiba boqol ku qanacsanahay aan garab istaagi doono inaan soo dhaweeyo walaalkeen gudoomiyaha ururka komishanka ururka midowga Afrika Maxamed Ali Yuusuf oo nasiib wanaag xilka markuu la wareegay dalkii ugu horeeyay oo booqdo 54 wadan ururka ku jirta Soomaaliya ay noqotay waan ka mahad celinaynaa ururkan uga mahad celinaynaa Maxamuudna uga mahad celinaynaa in uu Soomaaliya uu siiyay muhiimadaas ay leedahay ururka midowga Afrika iyo Soomaaliya cilaaqaadka u dhaxeeya aad iyo aad ayaa loo garanayaa Soomaaliya waxay ka mid tahay asaasayaashii ururka midowga Afrika maanta jira kii ka horeeyay ee ahaa OAU oo ay ka ahayd founding member waxa loo yaqaano ama asaase ururka sidoo kale Soomaaliya waxay taariikh dheer ku leedahay dib u xoreyntii qaaradda Afrika 1970kii iyo 80meeyadii wadamadii Afrika ee halgamaya beriga ayay hormuud Soomaaliya ka ahayday xoreyntoodii runtii qayb weyn ka qaadanay 1974kii waatii shirkii midowga Afrika lagu qabtay xamar Mogadishu Declaration waatii laga soo saaray oo dhammaantiis intiisa badan ku jihaysneed xoreyntii Afrika taariikhdaas ayaa Soomaaliya Afrika ay la leedahay chairperson cusub inuu taariikhdaasi xushmeeyay Soomaaliyana uu soo booqday aad ayaan uga mahad celinaynaa hase yeeshee meeshaas kuma ay ekaanin Soomaaliya magay duruufihii gaarka la kulantayna ururka midowga Afrika waa u istaagay asaguna Soomaaliya in uu garab istaago waqtiyada ay duruufaha adag ku jirtay laga soo bilaabo 2007 waqtigii Soomaaliya ay duruufaha adag iyo nimankan xaq jirka ay Soomaaliya soo galeen ilaa iyo maanta ururka midowga Afrika uu garab taagnaa iyo xubnaha ururka dawladaha ka aba Soomaaliya waxaa loo horay dhiig badan waxaa loo horay nafaf badan oo Afrikaan ah oo muhiimadda ay lahayd ay ahayd bas inay Soomaaliya ay dib u cageedo isugu saarto waa ka mahad celinaynaa waana aqoonsanahay abaalkaas Soomaaliya loo guday ama loo geystay mishinadii Soomaaliya soo maray iyo midka hadda cusub ee imaanay intaba mid walba caqabada iyo culays badan oo hortaagan way jireen laakiin kuwii horeba way ka soo gudbeen kanna Ilaahay idinkiis way ka gudbayaan kalsooni badanna waa qabnaa hoggaanka mudane Maxamuud in uu caqabadahaas jiro waxa uu naga gudbin doono annaguna aan kala shaqayn doono si rasmi u buuxdo waxaan rabaa Maxamuud inaan u ballan qaadno dalka Soomaaliya in uu mar walba doorkiisii ku saabsanaa roolka uu ku leedahay midowga Afrika inay u taagnaa doonto hoggaankiisana maadaama aan boqolkiiba boqol ku qanacsanahay aan garab istaagi doono It's a great opportunity for Somalia and for me to receive today His Excellency Maxamed Ali Yuusuf, the new chairperson of the African Union. We are very much grateful for him to make Somalia the first country to visit it after he took over the office. Somalia and the African Union has a long history. We are, as Somalia is a founding member of the Organization of the African Union, OAU, an active member now, the African Union as well. Somalia has participated actively in the liberation of Africa in the 1970s and the early 80s, and we have contributed a lot. Today, Africa has paid back us, sacrificed the African boys and the African girls who came to this country to support Somalia to stand its own feet again. We really recognize and appreciate that level of sacrifice that the African Union and the member states of the African Union has made for Somalia. Today is another great day that we had a new leadership and a new mission, which we hope that will finish the task
that has been assigned the African Union 18 years ago. Somalia has proven to be a very successful experience and experiment for the African Union as the African problems for the African solution for African problems, which has been proven that it is a fact and doable, and Africa can do and solve its own problems, of course, with the support of the international partners and the international community as well. We're looking forward the new mission will succeed and achieve its objectives under the leadership of His Excellency Chairperson Mahmoud, and we are very much grateful for that. Your Excellency, welcome to Somalia again.